turtur kaftani maraha duta bagalay haday quruux waxtari watan ka muuqate aqligi toosana bal maxkala tagay isku turtur kaftani mar haduu taabagalay haday quruux waxtari watan ka muuqate aqligi toosana bal maxaa kala tagay balaaya kala tagtay wax kala tagay baan naqaan anaga wax gad noo weydiin wariya alla yaqaan soo dhawaada idilhaantii saaxiibayaan marka soo joogtaan waa barnaamijkeeni xiisaha lahaa ee falanqaynta dhaantooyinka iyo ka dabagalka hidiyo dhaqanka waxaana ku soo qabanay dhaanto cusub oo ay wada qaadayaan abwaanka aadka u daada yar ee isla markaana codka halaasiga ah leh ee yiri nimankii hore yar nasta waad soo daasheen bal aniga waqti yarisiya abwaanuur goosaar iyo sidoo kale gabadh aan ka liidan oo codkeeda iyada qudhigeeda meesha loo baahnaa dhigtay oo la yiraahdo Keen Cumar dhaantadan waxay ku bilaabatay erayadaasi qayb asxaabta kamid ah ayaana soo codsanayay in la soo qabto toddobaadkanba dhaantadan waa dhaantaan inaba caadi ahayn murti aad u qoto dheerna ku duugan walow aniga ahaanteeda aan ka dhadhaminayo inay tahay dhaanta sarbeeban siyaasadaysan hoos ka sii ah karbaash xalaal ah laakiin qaar badan asxaabta kamid ah ayaa igu dhibay baryahan tabiyow waxaad falanqayso dhan ma siyaasadba dee annagu ma annaga siyaasad ka dhignay kuwa qaadayaa ka dhigay ayaga ku qabsada annagan ugu qabsanay qoodhii xirada soo baxad fahanteen ma dhaantadan hadday siyaasad tahay siyaasadeedaan u kala furfuraynaa hadday jacayl tahayna jacaylkeedii hidiyo dhaqankeeda ayaan u kala furfuraynaa laakiin dhaantada ku bilaabatay ereyada aad maqlaysaan ee ah isku turtur kaftani haddii uu taabagalay haddii waqtiga inoo saamaxay ani adiga inaan kaftan isdhaafsanno oon arrimo ka wada hadalno hadday quruux waxtari watan ka muuqatee bal caqligii toosanaa maxaa kaala tagay maxaa caqligii toosanaa ee dad lahaan jiray ilaahay bini aadamka ku sharfay maxaa kaala tagay adiga ereyadaasi ay ku bilaabatay ereyadaasi maxaa kaaga baxay ma jacayl mase siyaasad adaa noo kala sheegi laftirkaaga noo kala sheegaya intaan aanay sheegin ka hor soomaada garan laakiin dib baan ka ogaan doonaa dib ayay iska furfuri doontaa markaas ayaad dhihi doontaa alla ilaahay halkaasi timir laf baa ku jirta weeyaan ina keen qaybaha dambe iyo Keen Cumar waxay ku jawaabtaan aragna tooyashadii bilaantii taageerka guud taagnidaba tilmaantii rag waad leedahay away tab iyo xeeshi ma tabargaba wariyaa ilaahi yaqaan caadi baan isku karbaashayaa waa madaafiic aan caadi ahayn oo hawada isku marinayo targeetka guud haykalkaaga iyo waliba tilmaantaada qaabka rageed wad u dhisan tahay laakiin marka si lagu eego qolof maran baa tahay oo waxba ka jirin tilmaantaasi u wato oo qolof taagana sawir taagan baa tahay weeyaan macni waad maran tahay weeyaan haddii marba tab iyo xeeshi eber ay tahay abootan oo kale soo waxaad fahanteen maaha waxay leedahay marka tooyashadii bilaantii targeetka guud saas marka lagu eego kor laga fiiriyo taagnidaba tilmaantii rag waad leedahay away tab iyo xeeshi ma tabargaba rag wuxuu khibrad maskax caqli karti iyo waliba markay adag tahay in wax maareeyo lagu yaqaanay adigu tab iyo xeeshaadi tabargab miya betrilo miya soo qoraysaa weeyaan macni way ka dhamaatay gebigaagaba eber baa tahay waxa weeyaan sawir taagan ayaa tahay weeyaan waa hagaag bal qaybaha higa tukaliyo hadii tudu canku ugu daro gabadh loo soo tidco tima dhaadheer laho amara agtabtaada banaan taaganabid tukaliya haddaan tuduc yar kuugu daro gabadh loo soo tidco tima dhaadheer laho lama arag tabtaada oo kale bannaan taagin abid haddii aan tuduc yaroo kale kuugu daro gabar sidaadoo kale qurux haybad sharaf iyo wanaag u leh oo weli timahaas quruxda badan ee la tidcay ee dhabarka jooga leh hee oo bannaan taagan macnihi waxaa weeyaan bannaan taagan gayaankeeda ka kala leexday gayaankeedii baa gaar maray waa laga kala leexday waa markuu ninkii geela u heesahaytay u dhahayay weeyaan oo kale haddii guumays gayaankeed nacay oo ragga gara maray meeshuu wiilka geel u heesayay meeshuu usoo qaadan jiray oo kale weeyaan marka waxa weeyaan gabar garmaama oo sidaadoo kale ah oo quruxsan oo dhammaystiran oo timo tidcan oo dhaadheer leh oo bannaan taagan oon raggiiba kusoo leexanayninba adiga hortaa lama arag sheekii shaahidna looma hayo weeyaan macni hoos ka sii waa karbaash caadi ah soo xafaantay ma marka wuxuu leeyahay tabtaadoo kale gabar bannaan taagan oo noocaas u qurux badan oo gayaankeedii ragga gara maray weli lama sheegin lamana arag
waa sheekii shaahid wixii la dhihi jiray sheekana kuma maqal shaahidna oo ma arag weyaan micni waa hagaag tooyad geela dhashiya taysna waad leedahay 77 jirtay bal maxaa guur taya leh kaa tagtagay adiga marka halkaasi dhaga hadalka halkaas waan qaybinaynaa haddii jacayl iyo guwaabo doobnimo iyo dadkan doobnimada ku daahay lagu wado oo halkaasi baasha ka socoto aan idhaahno waa dhaga hadal jiifka lagaga kicinayo raggan iskaabulada ku daahday waa bahal jiifka lagaga kicinayo guwaabo aan dhahno dhanka kalena aan dhahno ninka siyaasiga ahaa ee hodanka ahaa ee wadankiisa iyo hantidiisa iyo barwaaqada aragtay haystay ee intii la sharfay la yiri madax noo noqo haddana hab maamulkii shacabka iyo dalka iyo dadka diinta anfacay ka leexday ee garab maray labadaba aan ku fasirna marka halkaasi soo faahfaahantay ma labadaba soo noqon kartay qoodii xiradu noqon kartaa in ragga doobnimada muxuu ahay dilootay lagu dhiga hadlay ee xaggana waxay ku guursadaan haysta ee lacagaha haysta hantida haysta ee doobnimada iyo muxuu ahay habeenba meel baridaas ka doorbiday inay gabar gayaankooda guursadaan oo guri la samaystaan dhaga hadal free ah oo ku socda ka dhigmid midna waxaad ka dhigtaa ninka siyaasiga ahaa ee baahi isagoon u geynin oo wadankiisa iyo hantidiisa iyo dhulkiisa qani yahay oo shacabkiisa iyo tolkiisa iyo dadkiisiba garab taagan yihiin oo madaxnimo u igmadeen ama madaxnimo loo doortay oo laga dhigtay haddana ka doorbiday in dana shisheeye iyo waxyaabo markaa isaga khaas u ah ka shaqeeyo micnihi muxuu ahaay ku dhiiraday labadaba aan u saarino si yacni muxuu ahaa labada dhinac baadii way noqon kartaa aanan uga gabadhicin ujeedkii dhaantada ay lahayd ama ay ku qotantay si kale kuma garatay qoodhi xirada adoo dhulkaaga sidaa yahay oo qani yahay dhowhanow 77 jirtay waayo aragnimo kugu filan iyo khibrad kugu filan waa sitaan waa haysataa maxaa guur tayada kaa tagtagay adiga maxaa inaad masiirka ummadaada iyo noloshaada dambiya aayahaaga iyo awlaadda aad ka dhiman doonto mustaqbalka dalka iyo dadka inaad ka fikirto maxaa kaa tagtagay oo ku garbada ubay maxay tahay danahan shisheeye ee nagu dhex wadatid iyo qaadada badda aad ku walaaqaysay qoodhi xirada marka labadaba ka dhig waaga sindatir maror samayon taaglahayn kolley toban jirtayo todobiyo indher maxaatirada ka reebay laga tagiyey sida tiir marorsamay oon taag lahayn foodley 10 jirtiyo 7 indheer maxaatirada kaa reebay laga tagiyey keligeed ba bannaan taagneed moogtahay marka wuxuu leeyahay tiir hadduu maroor iyo taag la'aan isku darsado dee waa tuuris marka waxaan rajalayn moogtahay tiirka asagoo maroorsan haddii tiir xooggan uu yahay waa weli waa isticmaali kartaa laakiin tiirka haddii maroor iyo haddana tamar darro isku soo darsado dee waa tuuris un moogtahay sida tiir maroorsamay oon taag lahayn foodley 10 jirtay 7 indheer hadday 10 jirtay iyo haddii 17 jirtay iyo hadday ka badneedba maxaa tirada kaa reebay laga tagiyey keligaa maxaa ku soo reebay maxaa guur la'aanta ku dhigay meeshan marka waa sida tii hore oo ahayd maxaa guur tayala kaa tagtagay adiga soo ma ahayn marka waa dhaga hadal marka dhanka gabdhaha aan dhahna iyada oo ah haddiiba muxuu ahay dhiggaa iyo dadkii adiga kula qayrka ahaa iyo gabdhihii kula faca ahaa la guursaday adiga maxaa guumaysnimadan iyo taagnidan kugu soo arkay soo waxa fahamta maaha marka wuxuu leeyahay hadday 17 jirtay hadday 10 jirtay hadday 17 indheer jirtayba tirada dumarka la guursaday ee tagay ee meel degay maxaa kaa reebay laga tagiyey ama lagaa tagiyey aduu lagaa tagiyo lagaa dhaqaaqiyey maxaa ku helay oo cidlada ku istaajiyey soo waxa fahamtay ma marka labada dhinac baa u fasirno oo marna aan dhahno waa gabdhaha guurka ka daahay dabcan dee inay muxuu ahay iska un maartay iska buleeyaan iska jeclaaday nin walba maanta guur u soo bandhiga diidahaya ee dhahaya hadda diyaar ma ahi xaggana hooyadii aabeed ka tagtay ee boorsada dhabarka u saarantay duurka degan nin maanta guur diyaar u ah haddii u soo bandhigtana dhahaysa hadda diyaar ma ahi waxay gacan ku haysanayaan jirin oo duurka iska taagan hooyadii aabeedna ka soo tagtay oo duur iska bulo ku ah boorsada dhabarka u saarantay marba gaari saaran marba safar ah diidayna in la guursado waa dhaga hadal ku socda gabdhahaasi aan dhahna dhan
soomada garan ee faceed iyo qayrkeed iyo asaageed iyo dadkii dugsiga isla soo dhigan jireen iyo gabdhihii la ekaa ay guursadeen iyo xaasas yihiin muxuu ahaay caruur iyo guri iyo de barwaaqo dabcan gaareen iyada oo ilaa hadda wax cilado haysta aan jirin duurka ay sidaa u meeraysanayso waa dhaga hadal ku socda aan dhahno siyaasadii aan ka hadlaynay oo ah hadiiba adduunkii uu hormaray oo midnimo horumar barwaaqo iyo nabad la gaaray iyo baraare maxaa adiga ku haysta oo meeshan madow ku fariisiyay laga tagi ama laga tagi maxaa ku helay Soomaaliya maxaa ku haysta way micni maxaa kugu dhagan oo tibqnaha ku haysta way ma socotid oo hor socotid soo faantima bal way ku soco matashow waxba ma tashiilatidi taladii reer tolka kala tacajabe tacab seegtee muxuu tiigsigaagu yahay ninka doobka ahaa ee doonimada ku daahay ee guursa diiday hantidana lahaa bal maxaa kaa dhaxli doono hantidan haddaad dhimato maxaa kaa dhaxli doono doobow yaa ku dhaxli doonaa ubad ku dhaxla maad yeelatid maad guursatid maxaa ku hortaagan maxaa cilada ku haysta ma kuu guurinaa gabar ma kuu keennaa ninka tolle sidaasaa loola hadli moogta marka reer tolka la tacajabe taladii intay kaaga nogeen bay la yaabeen oo way ku daaleen soomada garan adduunkana saddex baa u xun baa layidhi matoshe matashiisha iyo matashade saddexdaasa ugu liidata adduunka saddexdiiba ninkan iskugu geyso waxay tiri matoshow waxba ma tashiilatidi waxbana ma yareysatid oo waxba ma tashiilatid in meel wax dhigta ma tiid haddaad meel dhigataan wax kaa dhaxlahayo iyo mustaqbalka dambe kamaadan tashan reer tolkaana way kula yaaban yihiin ilaa hadda oo yaab ayay la fadhiyaan talabay kaaga noogeen tacab seegtay muxuu tiigsigaagu yahay maxaad higsanaysaa wey yaa kaa dhaxli raba xoolahan waa ninka doobka ha moogtaa dhanna waa kii siyaasiga ahaa layidhi war sidan iska bedel war mustaqbalkaa kuma fiicna war history fiican noo reeb war aan kugu faanno war adiguna waktigaaga joog annaguna waktigaad joogto aan xorriyad helno aan indhaha kala qaadno aan muxuu ahaayey waddanka hormarisanno ganacsiga haynoo hormaro shaqaalaha haynoo hormaro dee ninka lagaga noogay ee tiisa iyo tan shisheeyaha keliya ka shaqaynayay siyaasiga ahaa labadaba aan ku macnayno macdalaahi haddii laga dhigo way noqon kartaa ileen soo xafaantay ma bal waayahay ku soco indha qof hadduu tooska qabo dhagahataa kuleeye hadduu tiina gabo waa tusaale inuu tahaw sow maaha tiriig iyo indhaha ruux hadduu tooska qabo dhagaha taakuleeye hadduu tiina gabo waa tusaale inuu tahaw sow maaha soomada garan bal hadda eeg hadda si fiican u eeg tiriig iyo indhaha toos hadduu ruux ka qabo hadduu ruux indhaha yani muxuu ahaayey wiirshe ka yahay dee ishkaal ka galay si kale kuma garatidi dhagaha taakuleeya oo qofkaasi dhanka lagaga soo socday dhanka laga hadlahayo wuu kala dareemi hadduusan indhaha wax fiican ka arkayni moogta hadduu dhagihiina gabo oo intii yareedna gabo waa tusaale inuu taaho inuu dhaho oo jiifka ka taaho sow ma aha ilan waa ruux curyaan ah oo dhagaha iyo indhihiiba beelay oo iska inuu hadlahayo in kale baan kala gelinayo marka aan ku fasirno ninka siyaasiga ahaa aan ku fasirno ee markii horeba laga indhasaabay ee indhihiisa caadka laga saaray horumarinta dhulkiisa iyo dadka in uu u garto ama caqligiisa uu ku garto bal dadkan waa dadkaagii u turo horumar iyo waddankan waa waddankaagii ilmahaaga mustaqbalkaaga iyo dalka aad ka tagaysay iyo siyaasadaadaba history fiican u reeb indhihiisa waa laga saabay iyo caqligiisaba waxaa la yidhi ama tala yeelo ahow ama tala raaco ahow ama tala keena ahow ama tala yeela ahow moogtahay dhagihii wax loogu sheegahayay lalahaa sidan ma ay wad qaldan tahay sidan samee lalahaana hadduu diido tiina gabo oo dhagihii xidho waa tusaale inuu iska taaho oo hadba meeshii loo garqaado uu iska aado sow ma aha waa ninka siyaasiga ah aan ku fasirno oo dhaga hadalla uga dhig halkaasi waa yahay qaybaha xiga tagoogaha lugaha shakhsi kula turxaan waxaa taageerta gacane hadduu tiin ka mudo
toobiyaha miyuu ku tilaabsadaa bay tiri ayadana halkaasi kiin ayadana waxay tiri tagoogaha lugaha shakhsi kula turxaan waxaa taageerta gacane hadduu tiin ka mudo toobiyaha miyuu ku tilaabsadaa micnihii meesha madaafiic baa la isku adeegsanayaa qof hadduu markii horeba lugaha uusan buurbuurka ahayoo lugaha uusan ka socon karin waxaa taageerta gacan oo muxuu ahaayey haddii ul dheer uu ku taagsado uu qaato gacanta uu ku qabsado gacantaasi aad ayay u taageeraysaa qofka in uu taagsado oo tallaabtii lugta uu dhigahayba xooggiisa uu ushaasi ama gacantaasi saaro tiina hadduu tiinka mudo tiinkana waa geed khatartiisa leh oo hadduu ku mudo mararka qaar loo gooyaba gacanta oo dhir iyo wax kale isku bedela waa geed markii khatartiisa wato soomada garan marka hadduu gacanta tiinka mudo oo gacanta bararta dee dig dhaadhaawac si kale kuma garatidi luguhina mar horeba uu turxaan ku lahaa oo nin lugaha mar horeba ka fadhiyo uu hayo ka socon karin ka talaabsan karin gacanta taageeri lahaydna tiin ka muday toobiyaha wadada ah miyuu ku talaabsadaa wey kuma talaabsanayo uu fariistaa marka halkaasna ninka doobka ahaa taladiisana aan ku meel marin oon go-aan maskaxdiisa ka gaarin inuu guursado waqti ku socdo oo ubad uu dhalo oo muxuu ahaayey guda xalaala uu kusoo hoydo uu samaysto ninkii muxuu ahaayey caqligiisa iyo maskaxdiisa aan ka helin intaasi hafay gacantii uu wax ka bixin lahaaye uu sooriya ka bixin lahaa ama guri ka dhisan lahaa ama uu wax ka bixin lahaa ama gabar uu ku guursan lahaana diiday inuu ka bixiyo tiinka muday oo halkaa loogu xiray gacantii toobiyaha nololeed miyuu ku tilaabsadaa dhankaasna aan ka dhigno dhanka kalena aan u gudino dhahno ninka siyaasiga ah oo marka horeba la keensaday meesha la keensaday de ee marka horeba la keensaday haddana gabay isaga gacantiisa inuu wax ku qabto oo bal muxuu ahaayey isagoo xitaa ciddi keensatay ixtiraamka ay ku keensatay ilaalinaya haddana bal waxyar ha kaa haraan la ajligeed gacantiisa waxyaroo horumara xitaa ku sameeyana laga waaya isagana dhaga hadal ku socda aan ka dhigno labadaba way noqon kartaa waa hagaag qofaad ku tooska qabo yaga hataa kuleeye hadduu tiina gabo waa tusaale inuu tahaa soo maaha intaasaan kusoo koobaynaa dhaantadii aadka quruxda badnayd ee ay qaadayeen abwaan nuur goosaar abwaanka da'da yar ee codka halaasiga leh iyo sidoo kale keen cumar oo iyada laftirkeeda kabaha u gashatay nuur goosaar meel la isaga tiirisay tan iyo falanqaynteena xigta waxaan kaga tegayaa sidaas iyo fi amaanillah qofaad ku tooska qabo yaga hataa kuleeye hadduu tiina gabo waa tusaale